kulanti wanaagsan daawadayaal waa mar kale barnaamijkeeni falanqeynta wararka warbixinaha dhinaca diblomaasiyadda ee Warfadhi Media gangan caalamka oo dhan daawadayaal qodobada aad ku daawan doontaan wararkeena waxa ugu weyn Turkiga oo si kulul uga jawaabay hadalkii dawladda dalka Sacuudi Carabiya ay ku diiday inay soo gudbiso dadkii loo tuhunsan yahay inay abreen dalkii Jamaal Khashoggi qodobada kale daawadayaal wararkeena aad ku maqli doontaan waxa kamid ah hanjabaad markaas ku saabsan in jeelka loo taxaabi doono madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump oo soo baxay iyo in xilka qaadis lagu sameeyo doono arintii ka bixitaanka Britain iyo Europe oo kol kale calqarad horle la timid iyo Britain iyo oo markaasi ay xasarad xooggan ka tagantahay midowga Europe oo hanjabay qodobadaas iyo kuwa kale daawadayaal ku maqli doontaan wararka warbixinaha dhinaca diblomaasiyadda Warfadhi Media gangan caalamka dhan waa dabcan 11 bishii December waa maalmo saalisa waa 2018 mar kale barnaamijkeena falanqeynta dunida warbixinaha dhinaca diblomaasiyadda aan ku bilaabay markaan qaybta koobaad aan ugu horeysiiyay madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa mar kale ka gudoomay waraqaha dantiranimo safiirka dalkaasi Turkiga uu fadhiyo doona ama loo soo magacaabay dalka Soomaaliya ee Turkiga ka socda Maxamed Yilmaz arintan ayaa dad badan oo aad inoo soo weydiiyay Warfadhi Media isla markaana aad ugu jaawareereen ayadoo horey u oogeen in wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Soomaaliya ninka la yiraahdo Axmed Isacwad uu horey uga markaasi gudoomay waraqaha aqoonsiga safiir Maxamed Yilmaz sharciyan ama qaanuunka caalamiga ah ee dawladaha ee Geneva Conventions la yiraahdo aan u maleynayo dadka qaarkood inay daawanayaan inay aqoon u yeelan karaan ama ay eegi karaan waxa uu qorayaa horta safiir dal marka loo magacaabo hal mar ayaa waraqaha laga gudoomaa wasiirka arrimaha dibadda uu ka gudoomi karaa madaxweynuhu ka gudoomi karaa mar walba waxay ku xiran tahay sida dalka loo ciseenayo ama uu nidaamka uu dalkaas labada dal ay kala joogaan kolka waxyaalaha mamnuuca waxa kamid ah safiirka la soo magacaaba ilaa inta waraqaha danjiranimada laga wareegayo wax kulan ah oo ka baxsan safaaradda gudaheeda oo uu gali kara ama dalka kulamo uu ku qaban kara ma jirto madaxda kale ee dalkana inta waraqiisa aqoonsiga laga wareegayo wax kulama lama yeelan karo siyaasiyiinta lama kulmi karo cid kasto ay tahayna wax kulana lama sameyn karo waana standardka dhinaca diblomaasiyadda caalamka oo dhan warbaahinta xataa lama hadli karo tiisa dalkiisa iyo ta dalka uu joogo midna warbixin ma sii karo ilaa inta la aqbalayo waayo wali danjiraha rasmiga dalku ma aqoonsan sida daraadeed kulankii uu la yeeshay wasiirka arrimaha dibadda wuxuu ahaa kulankii aqoonsiga waraqiisa taas ayaana cadeynaysa in markaas safiirka uu wasiirku ka gidoomay waraqiisa hase yeeshee madaxweynaha dalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo doonaya inuu markaasi u muuqdo inuu markaasi doonayo inuu khaladaadkii hore saxo isla markaana laga yaabo in markaasi dad badan oo Soomaaliyeed aad Turkiga runtii iyo markaasi abaalka shacabka Soomaalida ku leeyahay inay kala hadleen ama runtiiba ay dabcan gaadhay warbixinaha iyo waliba falooyinkan ka diyaarinay ayaa arintaasi si weyn uga jawaabay isla markaana wuxuu dib uga aqbalay safiirkaasi waraqiisa warqad madaxweynaha dalkaasi Turkiga ka socotay oo horey wasiirka arrimaha dibadda uu qabtayna kol kale ayuu safiirku dib ugu wareejiyay idinku aad ka aragtaan sida markaas sawirka ka muuqataba in wasiirku gacanta ku hayo dambaalka ka yimid madaxweynaha dalkaasi oo toddobaad ka hor wasiirka arrimaha dibadda loo dhiibay hadana dib markaasi uu qabtay mar kale madaxweynaha dalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sidoo kale madaxweynaha ayaa sidoo kale isaguna wuxuu madasha uu kaga gudoomay aqoonsiga safiirnimo safiirka cusub isagana loo soo magacaabay dalka Soomaaliya ee dawladda Suudaan ee soo magacawday oo la yiraahdo mudane Khalifa Allah Mustafa oo markaasi cala oo asaguna noqon doona in kolkaasi uu noqdo safiirka dalka Suudaan u joogi doona dalkeena hooyo daawadayaasha qiimaha leh intaan qodobka Soomaaliya arrimaha dalka Soomaaliya ku saabsan ka bixina arinta ama qadiyada aynu ka balansaneen arinta ku saabsan arintan mooshinka laga keenay madaxweynaha Soomaaliya runtii arintan waa arin aad iyo aad u salweyn waana arin khilaafaad xooggan ama khilaaf xooggan oo hadeerto dawladda Soomaaliya qalalaasa kala gelisay waana markii labaad muddo haatan sanad ka yar ay dhacdo qalalaasa oo kala iyadoo xiisadii in ogeen ra'iisul baarlamaankii hore ninkii loo jiray Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari iyo sidii ay dawladda fadhiidka uga dhigtay arintan oo mawduuc aad u sahlan ma aha mawduuc aad iyo aad u weyn runtiina waxa ku jira gacmo aad u kala duwan haday noqoto xagga xukuumadda iyo madaxweynaha iyo haday noqoto xagga xubnaha mooshinka soo diyaariyay sida muuqatana baaritaanada hordhaca iyo warbixinta aynu helayno oo dhinacyada badankooda ka helayno iyo dhinacyo madax banaan inkastoo aad noogu adag tahay ilaa hadeerto inaynu helno
warar sugan oo dhinaca madaxtooyada ah oo madaxdu ay ka jawaabi leedahay markaasi su'aalaha aynu hor dhigano balse aan rajeynayo in aynu jawaabo buuxa heli doono saacadaha soo socda gaar ahaan barnaamijyadeena dambe ayaa haddana waxaa muuqata in ay arrintanu tahay arrin aad khatarteeda u leh waxaana isdhinac socda dhowr arrimood oo waaweyn oo ka mid tahay guddiga maaliyadda ee eedaynta hore u soo jeediyey oo ka mid tahay heshiisyadan caalamiga ee madaxweynaha uu la soo galay dalalka dariska Ethiopia iyo Eritrea ugu weynaato kii ugu horeeyay xamar lagula galay bishii June iyo waliba arrimo kale oo dhinaca hay'adda nabad sugidda ah oo iyadana ay horay warbixintaas aynu intaan u diyaarinay runtii aynu weynay ilo sugan oo dhinaca markaas madaxda nabad sugidda ay telefoonadii qabi waayeen mar walba Wararkii media waxay aad uga fogaanaysaa inay warar hal dhinaca on transparent ahayn inay siideen waxaan jecelahay cid kasta warbixin laga soo gudbiyo kolka warbixinta gacanta lagu dhigo in la helo hase yeeshee waxaad moodaa in shacabka gaar ahaan warbaahinta madaxa bannaan warbaahinta dabcan u quminaysa danaha Soomaaliyeed iyo dawladdu ay kala xiran yihiin balse waxaa jira dad badan oo diblomaasiyiin oo Soomaali iyo ajnabi bale oo xogahan waaweyn oo dhan gacanta ku haya markaana aad u hela xataa dalalka dariska iyo kuwa markaasi qarbiga intuba xogahan way isdhaafsanayaan ku saabsan dalkeena waxaad moodaa marka qaarkood in danjirayaasha dalalkaas ay naga xog badan yihiin oo kolka aad aragto qoraalada ay isdhaafsanayaan iyo kale aynu gacanta ku dhignay mas'uuliyiinta dalalka kale isdhaafsanayaan ayaga bay naga warro markaad eegto dalkeeni inaga warro si kastaba ha noqotee arrinta waxaan doonayaa inaan markaa daawadayaasheena la wadaagno aan ku soo celinno bal arrintan ilaa hadda aan gacanta ku hayno baaritaankeeda sidee bay idila tahay inaynu u soo faagno ma idila tahay inaynu arrintaas banaanka wada keenno oo xogahan oo dhan ku saabsan kooxdan keentay mooshinka laftooda iyo waxyaalaha ama ujeedooyinka iyaga laftooda ay leeyihiin iyo xukuumadda iyo madaxweynaha waxyaalaha lagu eedeynayo oo qaar badan iyagana ay run yihiin oo xaqiiqooyinkooda horeyna aynu tabinay kuwa kalena haatan aynu cadeymahoodii aynu gacanta ku dhignay dabcan sidee ayaynu arrintan runtii aynu u badbaadi karnaa dalkeena oo kolkaasi aynu u noqon karnaa u noqotaa xeegana xeega u noqotaa ilkana u badbaadaan runtiina in macluumaadka dalka ku saabsan dadka Soomaaliyeed laga qariyana xaq maaha oo runtii dalkan haddaynan macluumaadkiisa ogaanin wax badan cilada kama qabi karno sidaa daraadeed ilaa deerto ilaha dhinaca diblomaasiyadda iyo xogaha aynu helayno waa kuwo runtii dildilaamaya waana runtiina waxa ay cabsi weyn ay u leeyihiin in ay qarannimadii dalkeenu ay madmadow gashay isla markaana wada shaqayntii laamaha ay madmadow gashay khilaafka ka dhaxeeya baarlamaanka oo gudoomiyaha baarlamaanka hogaaminaya xubnaha qaarkood iyo xukuumadda oo ayagana ay la socdaan gudoomiyaha koobaad ee baarlamaanka iyo ku-xigeenka labaad ayaa waxa ay khatar markale gelinaysaa yacni halkii la doonayay Soomaaliya inay higsato 2 sanadood kadib oo cod iyo qof la doonayay in shacabku kolka ay doortaan inaga og in baarlamaanku ay keeneen awalba madaxda dalka haddana inay la xisaabtamaan wadooyinkii u mari lahaayeen sharci ahaan iyo xeer hoosaadka oo dhan ayaan aad u fiirinay qodobada dastuuriga ah ee madaxweynaha lagu eedeynayna dhamaantood qodob baynu soo fiirinay sidoo kale xogihii ayaa dhinac socda waxaase u baahannahay waqti dheeraad ah inaynu xogaha oo dhan soo wada hoorino dhinacyada oo dhan aynu wareysano sidoo kalena aynu ka fogaano afkaarta dadka qaarkood xag jirka ah ee labada dhinac ka tirsan qaarna aad xag jirnimo ugu yihiin mucaaradad aan macna badan sameynaynin oo runtii wax dumin ah qaarkoodna jacayl aan waxba badan dhisaynin oo runtii iska sacabtumisa balse aan ku salaysnayn ilaalinta dalka danta iyo diinta midnaba anagu waxyaalahaas anagu midnaba u joojimeyno isla markaana labada qolana waxba weydiimeyno waa sida xaqiiqda Wararkii media ay tahay way dadka wax la weydiin kara waxa weeye waa dadka doonaya in danta dalka wax walba laga hormariyo qolo kastana khaladaad ka leedahay banaanka si fair ah oo markaasi dhexdhexaadnimo ah oo Soomaalinimo banaanka loo keeno kolkaas qofkiisa jacayl xoogan ama jibe ah u hayo ama qofkii nacayb xoogan oo asagana jibe iyo caatifada uu ka buuxo anagu runtii ba qanci karno laakiin dadkan qanci karaan waxa dadka sida logic u hadla daawasha qiimeena waxaan jecelahay inaad aad uga doodaan qaababka ay tahay iyo warbixinaha ay tahay aad u baahantiin warbixinaha ay ka maqan waa dadka wadaniyiinta ah ee wadaniyadoodu ay ku saleysan tahay dalka kuwa kooxaha ku saleysan tahay ee labada qolo kala taageersan ama la kala dhacsan runtii waxaan rajeynayaa in ay dib intay isku xisaabiyaan ay waxa dalka u fiican ay runtii ay soo go'aansadaan saasaan jecelahay afkaartiinana waan ururi doonaa kadib markaan falanqayntiina egno ayaynu warbixinaha oo dhan markaan soo kala shaandheeyna xaqooyinkooda dhanna soo wada helno banaanka soo dhigi doonaa inagoo cidnaba aan runtii ku joogsanayn cid gaarana aynan uga xaglinaynin jacayl iyo gulwadayn aysan jiri doonin sidoo kalena nacayb gaara iyo mucaaradad midna aysan jiri doonin laakiin fahamka waxa qaadan kara dadka runtii aqoontana leh wadaniyadana leh labada qolo ayaan doonaynaa dadkan la hadlano
adoonayna iyaguna inaga qayb qaataan arrinta ay tahay daawadaasha qiimaha leh aan ku siqa wararka iyo warbixinaha dhinaca diblomaasiyadda ee dalka Mareykankuna waxa uu diiday in uu siiyo dalku gal ama uu soo dhaweeyo madaxweynihii hore ee dalkaasi Gambia Yahya Jammeh oo doonayay inuu soo galo dalka Mareykanka isaga iyo qoyskiisa madaxweyne Jammeh wiilkiisa xaaskiisa iyo gabadhiisa ayaa loo diiday inay dalka Mareykanka soo galaan lacagaha soo dhigaan kadib markii dawladda dalkaasi Mareykanka waaxda arrimaha dibadda dalku ay gelisay liiska loo yaqaan blacklist ama liiska madow oo looga jeedo in ninkaasi lagu eedeynayo ayaa la yiri in dalkiisa uu ka soo lunsaday lacag ama ka soo dhacay lacag xooggan waaxda war qoraal ay soo arrimaha dibadda ayaa sheegtay in madaxweynahan hore la diiday inuu dalka soo galo isagoo 22 sano dalkiisa xukumayay ayuu qabsaday sanadkii 1994 kadib markii uu xukun military kula wareegay dalkaas bishii December ama bishii 2 sano ka hor 2016 ayaa waxa ka guuleystay Adama Barrow kadib doorasho halkaas ka dhacday wuxuuna diiday inuu xilka baneeyo balse hanjabaad ka timid dalalka midowga Afrika gaar ahaan dalalka ururka la yiraahdo ECOWAS ee ka tirsan ama urur goboleedka dalalka ku midoobeen galbeedka Afrika ayaa ku hanjabeeyay talaabo military ka qaadaya taasina waxay ku qasabtay inuu cararo dalka Equatorial Guinea bishii Janaayo 2017 si kastaba ha noqotee haatan dawladda dalkaas ayaa sheegtay Mareykanku inuu $50 milyan ka soo dhacay dalkiisa sida daraadeedna aan lagu soo dhaweey karin ay yiraahdeen dalka Mareykanka Jammeh ayaa waxa uu kolkii horeba wax ku bartay dhinaca waliba tababaro dhinaca militariga uu ku qaatay gobolka Alabama ee dalka Mareykanka sanawaad ka hor wuxuuna leeyahay guryo waaweyn oo 15 mayl u jira magaalada caasimadda oo dalka Mareykanka Washington gaar ahaan degmada la yiraahdo Potomac ee gobolka Maryland ee dalkaasi Mareykanka oo uu ku leeyahay dhismayaal aad u waaweyn oo uu ka iibsaday ciyaaryahankii caanka ah ee Cale ee dalka Mareykanka oo ka iibsaday sanadkii 2010 kolkii ay guryaha dalka Mareykanka aad u jabeen oo ka siistay lacag gaadhaysa $3.5 milyan Mareykanka shirkad laga leeyahay dalka Shiinaha ayaa shirkad kale oo laga leeyahay dalka Mareykanka waxa ay ka geysay dacwad dalkaasi Shiinaha iyadoo dalalka Shiinaha iyo Mareykanka calaaqaadkoodii soo hagaagayay ee ku saabsan xabad joojinta dhinaca ganacsiga uu cirka isku shareeray markaana faraha ka haadi rabo kadib markii la xiray haweeney ka soo jeeda dalkaasi Shiinaha ayaa shirkadda la yiraahdo Qualcomm waxa ay ku eedeysay shirkadda Apple-ka ama shirkadda Apple loo yaqaan dalka Mareykanka ee soo saarta Apple laptopska iyo iPadska iyo iPhoneska waxyaalaha ay u badan yihiin ayaa haatan waxa lagu haystaa in ay qaabka chipta ah ee gudaha kaga jirta markaasi Apple-ka laftiisa ay ka haday shirkadaasi ama ay ka meersatay ama ay ka koobiyeysay waa markii ugu horeysay shirkad Mareykan ay shirkad Shiinaysa ay ku eedeyso in iyadu wax laga koobiyay alaaba shirkadaha Mareykanka ayaa Shiinaha ku eedeey jiray in ay iyagu wax koobiyayaan maxkamadda heer dhexe ee la yiraahdo degmada Fishu ee la yiraahdo maxkamadda dadka markaasi ama People's Court la yiraahdo maxkamadda dadka ayaa inta badan inkastoo xisbiga dadka dawladda dalka ayaa Shiinaha inta badan lagu magacaabo maxkamadaha dadka ayaa mar walba lagu magacaabaa kelmadda dadka iyo dalka la israaciya ayaa waxa ay u xukuntay shirkadaasi in ilaa iyo inta la soo kala cadeynayo kiiska laga mamnuucay dalkaasi Shiinaha oo dhan in telefoonada iPhone-ka ee kala ah baa la yiri 6S-ka iPhone 6 Plus-ka iPhone 7-ka iPhone 7 Plus-ka iPhone 8 iyo iPhone 8 Plus iyo waliba iPhone X dhammaantood aan laga iibi karin ama laga iibsan karin ama lagu iibi karin dalka Shiinaha oo dhan arrintaas ayaa waxa ay cirka ku shareertay khilaafka shirkadaha Mareykanka iyo Shiinaha iyadoo markii hore xaaladdu ay labada xukuumadood ama labada dawladood u dhaxaysay iyo hadda waxay u gudubtay dhinaca ganacsiga waxaanu runtii aad ugu faraxsanahay go'aanka maxkamaddu ay gaadhay isla markaana ay ka gaadhay ayaa la yiri arrinta ku saabsan dhacitaanka dhinaca hantida aanu muhandisnay ama wax loo yaqaan intellectual property rights ama xuquuqdanada dhinaca markaasi waxyaalaha aanu hindisnay ayuu yiri Don Ransenberg oo Qualcomm u ah madaxweyne ku-xigeenka isla markaana ah madaxa guud ee shaqaalaha Apple waxay sii wadaa inay ka faa'iideysato ayuu yiri hantidayada dhinaca muhandisnimada isla markaana waxay diiday in ay nasiiso xuquuqdii iyo waliba magdhowgii aanu ka rabnay sida daraadeed maxkamaddu waxa ay mar kale go'aanka maxkamaddu wuxuu kala cadeynaya sida ay u keentay cadeymo ku filan Qualcomm xatooyada Apple ayaa lagu yiri shirkadda Apple ayaa si carale uga jawaabtay go'aanka ka soo baxay maxkamadda iyo waliba dadaalka Qualcomm waxayna ku tilmaantay in aysan haba yaraatay u joojin doonin go'aanka maxkamaddaasi heer
dhexe isla markaana maxkamadda sare ay horey u amartay in alaabaha dalkaasi Shiinaha la geeyo Apple ku leeyihiin iyo kuwa lagu sameeyo ay sidoodii dadka muwaadiniinta ay reer Shiina ay u sii gada karaan halka nagala socotaan warfadhi media wararkii ugu dambeeyay ee dunida warbixinay dhinaca diblomaasiyadda qaybta dambe iyo wararka hogaaminta daawadaya